4 qofood ayaa dhimatay oo isticmaashay tallaalkan AstraZeneca. dad badan isbitaalada ayaa la dhigay oo dhiig xinjirowgan lagu arkay. dhiig xinjirowga iyo tallaalkan ma xaqiijiseen in xiriir ka dhexeeyo. waxaa ilaa hadda la sameeyey baaritaano dhowr ah si aan u fiirino in xiriir uu ka dhexeeyo dhiig xinjirowga dadka qaarkiis lagu arkay iyo qaadashada tallaalka. waxaana baaritaanka hordhaca nooga soo baxay calaamado muujin karo inay dhici karto loona badinayo in xiriir uu ka dhexayn karo labadaas. laakiin ilaa hadda ma hayno caddayn iyo jawaab rasmi ah oo muujinayo in xiriir toos ah uu ka dhexeeyo qaadashada tallaalka, dhiig xinjirowga iyo xitaa dadka qaarkii oo isku arkay dhiig furan gudaha jirka ah. magacaygu waa Farxaan Cali Xalane, waxaan ka socdaa ururka Info 123 iyo hay-adda warbaahinta Nursom oo alaba idin soo gudbisa warbixinada ugu dambeeyay ee coronavirus iyo go'aamada dawladda ka soo baxa. waxaa dawladda Norway soo saartay warbixin sheegaysa in dib loo dhigay isticmaalka tallaalka AstraZeneca. waxaana la joogaa agaasimaha waaxda cudurrada faafa ee Machadka Caafimaadka Dadweynaha ee waddanka Norway, Master Geir Boklom. su-aasha koowaad oo aan weydiinaya waxay tahay, waxaad sii dheerayseen dib u dhigista isticmaalka tallaalka AstraZeneca. arrintaas maxaa u sabab ah? sababta aan go-aankaas u qaadanay waa marka koowaade waxaan dhacdooyinkan u aragnaa kuwo halis ah. waxaan rabnaa inaan sii baarno in tallaalku uu sabab u ahaa dhacdooyinkan iyo in kale. si gaara waxaan rabnaa inaan u fiirsano dhacdooyinka afarta ee dhimashada la xiriira. waxaan baaritaan ku samayn doonaa xiriirka ka dhexeeya qaadashada tallaalka iyo dhimashada. marka labaad waxaan rabnaa inaan si gooni ah u baarno waxa sababay dhacdooyinkan, qaabka calaamadaha dadka lagu arkay ay u samaysan yihiin iyo inay yihiin kuwa naadira oo aan horey loo arkin ama kuwii caadiga ahaa ee hore loo yaqaanay. marka saddexaad waxaan rabnaa in haddii ay noo caddaato in calaamadaha ay yihiin kuwa ka dhashay tallaalka, inaan sii ogaano in arrintan ay saameyn gaara ku leedahay qaybo ka mid ah bulshada, iyadoo markaas da-da laga cabir qaadanayo ama waxyaabo kale lagu qiimeynayo, si aan u ogaano qeybta dadweynaha ka mid ah ee arrintan u nuglaan karo ama saameynta xoogan ay ku yeelan karto. arrinta afraad ee aan rabno inaan baarno waa saameynta ay arrintan ku yeelan karto tallaalista dadweynaha haddii ay noqoto in go-aan isbeddel ah la qaato. 4 qofood ayaa dhimatay oo isticmaashay tallaalkan AstraZeneca. dad badan isbitaalada ayaa la dhigay oo dhiig xinjirowgan lagu arkay. dhiig xinjirowga iyo tallaalkan ma xaqiijiseen in xiriir ka dhexeeyo. waxaa ilaa hadda la sameeyey baaritaano dhowr ah si aan u fiirino in xiriir uu ka dhexeeyo dhiig xinjirowga dadka qaarkiis lagu arkay iyo qaadashada tallaalka. waxaana baaritaanka hordhaca nooga soo baxay calaamado muujin karo inay dhici karto loona badinayo in xiriir uu ka dhexayn karo labadaas. laakiin ilaa hadda ma hayno caddayn iyo jawaab rasmi ah oo muujinayo in xiriir toos ah uu ka dhexeeyo qaadashada tallaalka, dhiig xinjirowga iyo xitaa dadka qaarkii oo isku arkay dhiig furan gudaha jirka ah. dalal badan oo Yuruba tallaalkan isticmaalkiisa waa sii wadaan, sida Ingiriiska. Norway iyadoo maxay u istaajisay? dhammaan wadamada oo dhan waxaan aragnaa in halisaha ka dhasha saameynta fayraska corona ay mar walba ku badan yihiin dadka waayeelka ah, gaar ahaan kuwa ay da-doodu ka weyn tahay 65 sano. sidaas darteed ay dadka waayeelka ah mar walba faa'iido ugu jirtaa inay tallaalka qaataan. ilaa hadda ma hayno tirakoob saxa oo sheegaya saameynta calaamadaha cusub ay ku yeesheen dadka waayeelka ah marka la joogo gudaha Norway. saasoy tahay, waxaa socoto qiimeyn lagu sameynayo in nooca tallaalka ah ee la hakiyey dib loogu bilaabo dadka waayeelka ah, sababtoo ah halista la hubo ee xanuunkan uu u keeni karo ayaa sida muuqato wax badan ka badan calaamadaha aan ilaa hadda la xaqiijin ee tallaalka ka dhalan karo, waaba haddii la xaqiijiye. waana halkaas halka ay wadamadu ku qaybsameen. Denmark iyo Norway waxay go'aansadeen in la hakiyo adeegsiga tallaalka noocaas ah ilaa inta laga helayo macluumaad dheeri ah, halka Sweden iyo Finland ay go'aansadeen in tallaalka la siin karo
dadka ka waaweyn 65 sano. Iceland waxay siisaa dadka ka waaweyn 70 sano. Faransiiska oo kalena waxay talaalkaas siiyaan dadka ka waaweyn 55 sano. Marka la fiiriyo, wadan walba qiimeyn sax ah oo xaaladiisa gaarka ku saabsan ayuu sameeyay. Laakiin Norway waxaan go'aansanay inaan sii sugno waqti dheeri ah si aan u hubsano halista saameynta uu noocan talaalka ah u keeni karo dadka waayeelka ah ee bulshada ka tirsan. De aller eldste før vi konkluderer. qorshihii hore ee tallaalka wuxuu ahay in dadka 65 sano ka weyn la tallaalo ka hor bisha Juun. qorshahaas maxaa iska bedelay? Ikke veldig store endringer i den planen. Wax isbedela qorshahaas kuma uusan iman. Waxaan barajo ka qabnaa in dhammaan dadka ka waaweyn 18 sano la tallaalo wixii ka horeeya bisha Juun. Haddii la isku raaco in la joojiyo adeegsiga nooca talaalka AstraZeneca qaybo ka mid ah bulshada ama gebi ahaanba, waxaa markaas nagu dhici doono dib u dhac gaaraya isbuuc ilaa 2 isbuuc. Laakiin waxaa ku xiran shardi ah in shirkadaha kale ee aan la galnay heshiiska talaalka ay keenaan talaalkii aan kula ballanay inay Norway soo gaarsiiyaan isbuucyada soo socda. Leverer den mengden med vaksiner som til nå er avtalt. ugu dambeyn, goormaa laga yaabaa magaalada Oslo in dib loo furo ama guud ahaan wadanka oo xaaladdu ay caadi ku soo laabato? Ja, det kommer jo litt an på hvordan vaksinasjonsprogrammet går fremover. Arrintaas waxay ku xiran tahay sida uu hadba noqdo barnaamijka gaarsiinta talaalka ee bulshada. Waxaan ka fikiraynaa in marka ay talaalka qaataan inta ugu badan ee dadka ay da'doodu ka weyn tahay 45 sano, in la qiimeeyo in wadanka si tartiib ah markaas loo bilaabo in la furo. Waxaan ku rajo weynahay in arrintaas ay dhacdo bisha May dhexdeeda ama dhammaadkeeda. Laakiin si taas loo gaaro, waxay iyadana ku xiran tahay in la qiimeeyo xaaladda xakameynta faafitaanka fayraska si markaas si taxadar leh wadanka dib loogu furo. Det har at man forsiktig begynner å åpne.